waanad mahadsantihiin sidaa laydin sheegay waa markii ugu horreysay taariikhda cuqaash axmed faarax ay hal qof u oleeyaan ama ay meel isku wada raacaan waxa weeye waa ilaahay mahadii oo ay isku raaceen xildhibaan jaamac axmed oogle dee soo dhoweeya codkana siiya codkanu iyo qaybsamin annagana deegaanka noogu hiliyo weliba u cud u codeeya iyo intii kale ee macquul ah ee aad odhan karta ama waxa weeye waxbay idin tari karaan u codeeya xisbiyada kalena u codeeya annaga noogu horraysiiya aad iyo aad baan islahay lambarkayguna waxa weeye 103 cabdi fataaxle waxa weeye 105 soo maahay dhacday waxaanu go'aan ku qaadanay dhammaan beesha dhaqankeedii waayeelkeedii gurtideedii siyaasiyiinteedii xildhibaanadeedii hore in la soo saaro codka la isugu geeyo jaamac axmed oogle caanaboodhe idinkana waxaanu idinka doonaynaa inaad nala qaadataan oo aydanaan codkiina khasaarin inaad nala qaadataan oo aydanaan codkiina khasaarin oo ugu gurtaan jaamac sidaasaannu idin soo gaadhsiinay go'aamadii ka soo baxayna waa sidaa 31 May dhowr iyo 10 maalmood 13 maalmood ama 14 maalmood baa inaga xiga sidaa reer gudmahadle u diyaar garooba codkiina halkaasaa ku biirinay xaafad ma kala noqon karo waxa weeye ama codkiina ceelafeen dhaafiya ama codkiina ugu shuba ka aanu isku raacsanay adigana way garanaysaan waxaan ka yimi gobad dabagodood baan ka yimi reerkayga halkaas u jooga halkaasaan codka ka soo bixinaya haddii ilaahay idinka dhigo waxa weeye ninkii maanta axmed faarax dadaalkiisa iyo maxay soo bixitaankiisa ka shaqeeya ayuunba axmed faarax waxa laale waxa duuyaale wixii kale oo doonaya inaynu isla baabaano runtii waxaanu idin odhan lahayn annagu haddii aanu meel walba tagnay haddaan aanu meel walba soo marnay si wanaagsan baan ku soo dhaweeyey dadkiina waxbay fahmeen idinkana waxaanu idin fahansiinaynaa war caqabyaaladi ma jirto yaa wax inoo tari karaya ma garanaysaa markaa waxaan leenahay wadaan baanu idinla qaadanay waxa weeye ninkuna waa gudmahadle beeruhu meesha beer buu ka qodan jiray masaajidka magaalada ka nuuraya hagaajinay isaga loo dhisay waxa weeye anagu nin kale ma aaminsanin waxaan kale Axmed Faarax wada ma naqaano ximaasadna ma naqaano waxa weeye Axmed Faarax wuxuu lagu ogaanaya hadaan gudmahadlenahay inaan anagu kala baydhin ninkii meel kale maraana isagu baa codkiisu qasaaroobayay xildhibaan jaamac maxamed oogle waa nin reer gudmahadle beertan buu qodan jiray masaajidkan isaga noo dhisay abaal buu ku leeyahay deegaankan waa nin ka mid ah reer gudmahadle waxa weeyaan waanu hambalyeeynaa waa soo dhaweynaynaa waa looga fadilayahay xildhibaanada kale saddexda xildhibaan Axmed Faarax oo sharaxana waa kan ugu macquulsan weeye ee la qaadan karo beeshana waa ka isku raacday waa isaga taageeraynaa marka xiga aad baan idinka mahad celinaya sida sharafta leh anaga iyo waftiga ila socotay iyo cuqaash iyo xagaradkaba u maamusteen oo soo dhaweyseen waa mid inaan isku lahayn oo inaga dhaxaysay inta haddaan kaga gudbo mahadnaqa aniga dad way garanaysaano waa jaamac caanaboodhe weeyaan kulley ama aan xagga idinka soo galo ama xagga idinka soo galay idinkama fogeyn waabay xasuusiyay maayar waxay xasuusiyay lixle 1991 bay ahayd markii aan ka beera ka qodan jiray iyo 92 iyo waxaan xasuustaa maalin aan beeye iibsanayo qolo ka iibsanayo beeyadan aad ma aqoonin markaasaan war lixlaysi mariya god halka godkii maxamed muxuu ahaa markubadli godkii meel baan ugu tagnay dabadna waxaan ka baxnay waddo halka madhuubo iyo mayaxluunti magac la madhuubaanu ka baxnay buurtaanu koray markaan buurtii tagnaan beeyadu tagnay iibsanayno wadibiga soo raaruji runtii aad baan ugu faraxsanahay inagu dee inta badan waxay ugu dambeysay maanta masaajkan ay hawsha aan ka galay intii ka dambeysay inagu kuma soo noqonin horta anugu deenu ni beeyasitaabana beeyasitadii ugu weynaa baan ahay oo waxaan doonayaa kolley beeyasitada si gaar ah baanu dee isugu xidhannahay halkana waa golo beeye marka golo beeye horta inaan ku qado horta dee fili maayo insha allah kolley dee musharaxiintu way badan tahay anigu cuqaasha markhaati baan u wataa waa markhaati aan wato aan idin tusayo in
dee aqlabiyadii reerku ay isku kay raacday ma aha wax anugu aan dadka ama ku qasbay ama aan dee ku soo laalusho lacag ku soo siiyey waa wax ka soo baxay shirkii iyo dee hulul idina warka waa hayseen insha allahu kulli haddaan wax kala qaban waayo dee beeyada waa idinka adag inaan suuq idinku doono haddaan wax kale haddaan idin qaban waayo